xilli muddooyinkii dambe guud ahaan dalka gaar ahaan deegaanada Jubaland ay ka soconayeen dadaalo kala duwan oo lagu yareynayo faafidda caabuqa coronavirus ayaa Wasaarada Haweenka Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Dowlad Goboleedka Jubaland oo kaashanaysa hay'adda CARE waxa ay agab looga qayb qaadanayo xakameynta caabuqa ku wareejisay taliska booliska iyo xarunta horumarinta haweenka xaafadda Midnimo ee magaalada Kismaayo. Maxamed Cade oo kamid ah howlwadeenada wasaaradda ayaa warbaahinta u faahfaahiyay adeegan iyo waxa uu ka kooban yahay isagoo sheegay in arintani tahay qorshe looga hortagayo isla markaana hoos loogu dhigayo halista cudurka. waxaan joognaa anagoo ah wasaaradda haweenka iyo hay'adda CARE xafiiska booliska administration booliska xaafadda Midnimo oo rabnay barnaamij yar oo coronavirus ka hortagiisa inaan la wadaagno xafiiskan sida la ajrigeed waxaan rajayn doonaa insha Allah taala waxaan alaabta meesha taalaayo saabuun iyo alaabtan oo faraha lagu dhaqanayo iyo afxirkii iyo gloves macalka gashadiya ka kooban in uu bilow u noqdo waxyaalaha xafiisyada dawladda xarumaha sidan oo kale inuu yaalo markasta waa daruuri weeyaan maadaama ay tahay goobtani goob ay isugu imanayaan bulshadu oo shacabkii loogu adeegayo booliska laftigiisu hawlgallada ay wadaan waxa badan ka caawinayso markasta ay baxayaan markasta shaqo ku jiraan ba inay isticmaalaan waxaana la socota hay'adda CARE oo barnaamijka ta iyaduna qaybta ugu muhiimsan iskale qaybaha kala duwan ee ka faa'iideystay ayaa ka mahadnaqay iyagoo soo dhaweeyay juhdi kasta oo lagu joojinayo saameynta uu bulshada ku yeelanayo xanuunkan dunida hareeyay. waa kan taliye Maxamed Macalin oo isagu ahaa mas'uulkii gudoomiyay qalabka baahi aan qabnay oo arada ka jirtay baa naloo keenay waxaan loo keenay wasaaradda haweenka iyo hay'adda CARE aad baan ugu mahadcelinaynaa oo waxna anfacay ahaayeen qaabtan gloveska meelo badan baa loo isticmaalaa hadda coronavirus kaliya loo ma isticmaalo meelo kale oo loo isticmaalo booliska faa'iido ugu jirto tan kale oo jeermis dilaha dharka afduubka saabuunta aad bay noo anfacayeen waxay noo anfacayeen meelo badan bay noo anfacayaan xag amni bay noo anfacayaan alaabaha qaarkood xag caafimaadna alaabtu qaar bay noo anfacaysaa annagoo ah booliska Midnimo waan u mahadcelinaynaa wasaaradda haweenka iyo hay'adda CARE ba. hooyooyinka ayaa dhankooda wasaaradda haweenka Jubaland ku amaanay doorkeeda waxa ayna tilmaameen in wax badan uu ka anfici doono sidii loogu talagalayna u isticmaali doonaan alaabtan laga keenay wasaaradda haweenka iyo hay'adda CARE noo keeneen wayna anfacayaan waxaan lahaynin iyo wax laayo wayna kolka hore isku mid ahayn alxamdulillah aad bay noo anfacayaan waana soo dhaweynaynaa waana u baahnay sidii loogu talagalay baan loogu keenay annagana aanu isticmaalayna xarunta horumarinta haweenka waxaan guddoonsiinaynaa barnaamij yar oo coronavirus waxa loo isticmaali jiray gamcageliskii afxirkii iyo saabuuntii iyo dawadan iyo waxyaalaha saas oo kala waan jeclaan lahayn cid kasta oo bulshada u danqanaysa ama bulshada dareen u qabo in xaruntan gabdhaha ay joogaan inay soo booqdaan. barnaamijkan ayaa waxaa barbar socday waxa loo yaqaano GBV-ga ama xadgudubka ka dhanka ah jinsiga. waatan Leila Cumar Muuse waxaanu ka wada shaqeynaynay arrimaha COVID-19 oo dalka mar kale ku soo cusboonaaday waxaanu qaybinaynay alaabihii COVID-19 ka aanu geenaynay goobo muhiim ah aadna looga baahan yahay baahi fara badan oo COVID-19 ka alaabihiisana ay ka jirto sidoo kale into barnaamijka waxaa qayb ka ah xadgudubka ka dhanka ah jinsiga aanu isagana ka shaqeynaynay intuu barnaamijkan aanu ku guda jirno waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan inoogu soo ilaado insha Allah. dawladda oo si wanaagsan isaga xil saartay xakameynta faafidda cudurka ayaa horay u qaaday tallaabooyin lagu yareynayo saameynta uu COVID-19 ku yeelanayo bulshada Soomaaliyeed. Cabdullaahi Xuseen Kilas telefishinka caalamiga Ariel Kismaayo.